madaxweyne Vladimir Putin ayaa xusay inay tani fariin u tahay kuwa isku dayaya inay u hanjabaan Ruushka. waxaa laga soo daayay TV-ga iyadoo ay ciidamadu ay Putin warbixin ku siiyeen in gantaalka laga soo tuuray plastic oo ku taal waqooyi galbeed ee waddanka Ruushka, bartilmaameedyo ku yaala gacanka bariga fog ee Ruushka. waaxda gaashaandhigga Maraykanka ayaa tibaaxday in tallaabadaani aysan khatar ku ahayn Maraykanka iyo xulafadiisa, iyadoo Moscow ay si sax ah u ogeysiisay Washington tijaabadan iyada oo la raacayo waajibaadkeeda heshiiska nuclear-ka. ma ahayn wax la yaab leh. afayeenka Pentagon John Kirby ayaa u sheegay suxufiyiinta. afayeenka wuxuu u muuqdaa mid hoos u dhigaya in Maraykanka ka walwalay tallaabada tijaabada ee Moscow ee gantaalkan. wax yar ka hor Putin waxa uu sheegay in gantaalka cusub ee Sarmat oo awood u leh inuu ku garaaco bartilmaameedyada ridada dheer uu dalkiisa ka badbaadinayo khataraha cadawga. madaxweyne Putin ayaa caddeeyay in Ruushka uu ku guulaysan doono ujeedooyinkiisa military ee gobolka Donbass ee bariga Ukraine, taas oo uu yidhi inay u oggolaanayso dadka inay dib u bilaabaan noloshooda caadiga ah. isagoo ka hadlaya kulan ka dhacay Kremlinka ee looga gol leeyahay in lagu horumariyo Ruushka, Putin ayaa sheegay in Moscow ay ku qasabtay in ay howlgal military ka bilowdo Ukraine sababtoo ah musiibo ka dhacday Donbass awgeed. anigu markii horeba waan idhi ujeeddada howlgalkan waa inaan caawinno dadkeenna ku nool Donbass, ayuu carabka ku adkeeyey, isagoo u muuqda mid marmarsiyo u raadinaya duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine bishii February 24-keeda. isagoo la hadlaya saraakiil military, madaxweyne Putin waxa uu ka hadlay qorshayaashiisa howlgalka Ukraine, tallaabooyinkiisa military iyo dadaalkiisa xoojinta dagaalka. inkastoo Ruushka duulaanka uu ku qaaday Ukraine uu la kulmay cambaareen caalami ah, haddana waxaa ka sii horreysay markii dabcan Crimea uu awood military ku qabsaday 2014. waxaan u dhaqmi doonnaa si joogto ah oo aan hubinno in noloshu ay si tartiib u noqon doonto mid caadi ah. way isbedeli doontaa si ka wanaagsan sida ay hadda ku dhacday adiga, ayuu hadalkiisa ku yidhi. madaxweyne Putin ayaa si joogto ah u isticmaala sanad guuradii ka soo wareegatay la wareegitaanka jasiiraddan Crimean ee Ukraine si uu u muujiyo jacaylka uu qabo waddankiisa hooyo, taasoo reer galbeedka ay ku sifeeyeen qariska xoornimo weyn.